بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسوله الأمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وملئ يا ملئ بالليل waxaan si kala gacal lagu soo dhaweynaynaa martida wadanadeena jaarka ah ka socota ku takhasusay qaarkood afka hooyo anagu af baan dhahnaa xafartu sidaa bay tiraahdaa oromadu sidaa bay tiraahdaa faranjiguna carab buu yidhaa langiga soo maaha langiga waa carabkii qaar baa carabkii doortay qaarna afkii oo dhan bay qaatay waxa loo jeedaa in waa mid quraacto waa dhaqan waxa weeyaan wax isgaarsiin weeye waxa weeyaan fikir weeye afkaasi muxuu yahay kolka la yidhaahdo luqad baa jirta la yidhaahdo bambara oo afrikada bartankeega dhex martay lamaan xagga shishe dadka dhulka dego oo dhan way ku wada hadlaan haddana waa af qofna lahayn baa la yidhaahdaa oo ragga baayac mushtarkiuna ay sameeyeen oo lagu ganacsanayay un faqad ilaa imika lagu ganacsan kolkaa dee ma af administration baa ma af maamul baa ma af cilmiyeed baa ma af yani farsama intaas baa loo kala qaadaa afafka kolka la eego kollayba se waxa weeyaan waxna waad ku qaadan waxna waad ku tabin labadaba qiimaha la siinayna waxa loo siinayaa waxa weeyaan bani aadamku afku isku afgartaa xooluhuna urta baa la yidhaahdaa kolka haddii afkii aad doonayso adigu inaad wax tabiso wixii aad ku tabinaysay adeegsanaysay adigu kaa gaaban yahay ma tabin karaysa kol haddaanad tabin karayna mesaajkaagii ama farrintaadii ma tabayso waad ku khasban tahay kolka inaad afkaa haddaad doonayso inaad wax tabiso cilmi tabiso aqoon tabiso farsamo aad tabiso intaba waxaa lagaa doonayaa inaad afkii aad mulkido inuu intiisa xubnood ee uu kala baxayo oo dhan inaad barato kolka uu shacbigu yahay reer guuraana qiimo gaaruu leeyahay afku oo ka duwan kani musaariciinta ama beeralayda oo kan musaarica yaa ka culus kolka la eego kani socdaay isaguna afka hadduu jirin maba socon karayaba xoolana ma samayn karo safarkiisa ma saadaalin karo oo meeluu roob jiray war ma haysaa unbaa la odhanaya ma haddii war aan jirin way dhammaanaysaa yani noloshiibaa istaagi karta baan ujeedaa waxaa dee loo asteeyey adduunkaba in maalintani ay noqoto maalintii afka hooyo xaajiyadda ministraddii waxay tidhi waxa hooyo kolkii lagu ladhayba ayuu qiimo yeeshay tiri waa runtii war afkii aan wax ku barannay ee uu gaalku nooga tegay cilmi buu siday aan cilmigiisa ku nabnaano oo afafkeennan xaafadaha aan ku haysanno baan yaan isnidhi xaafadihii bay dee halistiiba ka timid halistiiba xaafadihii bay ka timid maxaa yeelay gabdhihii iskuulka ha tagaan baa la yidhi way wada tageen dee maca wiilashii carruurtii yaryareedda yaa wax baraya haddii aan isgaari weyno halis baan galaynaa oo hadhow haddii dadaalka socda ee dabadda ka imanaya ee afka lagu baabi'inayo iyo dhaqankaba ama lagu rogayo haddii annagu aan u itaalaysan weyno ama aan isku qalamayn weyno ama aan u dadaali weyno in aan albaabka iska xidhno oo dadka xaafadda lagu baro afkooga hortaba
inaan sheekooyinkii soo celino ama aan qorno ama aan telefisyoonka ka dhigno kuwan sawirka laga dhigo aan ka dhigno in aan halkaa ka wadno carabigu si wanaagsan ayuu ugu fahmay weerarka soo socda ugu fahmay oo isaguna wuxuu ku horgeeyay ciyaarihii caruurta agabkii lagu camal falayay isaguna ku camal falay aqoontii aan ku bedelaynay waan haynaa laakiin waxay u baahan tahay maalgelin bay u baahan tahay si aan u maalgelino waa inaan fahmno haddii xabad quraato ama laba quraato ay noo barato baalkan uu isaga istarayo oo baaci mushtar baa laga arki doonaayo waa lagu dadaali doonaa si lacag looga helo annaguna aqoon aan uga helno oon carruurtana uga badbaadinno halistaa nagu soo socota ee noo muuqata waxa aan fariinta aan dhiibaynahay maanta waxa weeyaan dadaalkaas afkeenna waxa mujtamaca dalkan jooga ayaankiisuna kolkaad eegto af cafar iyo af soomaali iyo af carabi saddexdaba keli kuma nihin tol baan leenahay oo ayagu toos wax ugu barta afka waan isku tabin karnaa xidhiidh waan abuuri karnaa sidaa maanta oo kale in aan ogaanno ama aan la soconno ama aan xidhiidh la yeelanno dadka soomaalida ku hadlaya dadka cafarta ku hadlaya meelaha ay joogaan xukuumadaha ay leeyihiin machadyada ay leeyihiin iyo intan aan hayno inaan isku darsanno oo aan wax qabsanno ayaa annagu farriintayadu ay tahay waxaan idin rajaynayaa ciid wanaagsan dalkeennu ha noolaado afafkeennuna ha noolaadaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته